sirta ka dambaysa sida internetku u shaqeeyo. Wax su'aal ahi kama taagna in internetku horumariyay nolosha aadanaha si ahaan waaba farsamada ugu weyn ee aan la nimid dhanka horumarka. Laakiin sidee u shaqeeyaa? Yaa iska leh? Halkee ku yaala? Yaa dhab ahaan ka shaqaysiiya? Inakeenaan isla aragno warcelinta weydiimaha xaalka internetka ee hadda iyo mustaqbalkiisa. Kacaanka internetku wuxuu bilowday 1969kii. Xilligaas waaxda difaaca ee Mareykanka waxay lahayd qayb la yiraahdo ARPA, Advanced Research Projects Agency. ARPA waxay samaysay cilmi baarisyo badan, waxayna samaysay technologies kala duwan oo aan maanta u isticmaalno isgaarsiinta internetka. Bilowgii waxay isku xireen computers dhowr ah oo yaalay jaamacado kala duwan, kadibna waxay siiyeen magaca ARPANET oo ah magacoodii oo ereyga net oo la micnaha shabakad gadaal looga daray. Sanado gudahood ARPANET way baahday sida computers badan ugu xirmayeen, taasoo ugu dambeyn keentay in lagu dhiirrado internetka casriga ah. 20 sano kadib, saynisyahankii dhanka kombiyuutarka ee reer England, Sir Tim Berners-Lee, oo u shaqaynayay xarunta reer Yurub ee cilmi baarista nukliyeerka oo magaceeda loo soo gaabiyo CERN kuna taala Geneva, ayaa loo xilsaaray cilad bixinta carqaladaha ka dhasha isqaadasho la'aanta networkska kala duwan ee xarunta CERN. Xalkii uu keenay ayaa noqday World Wide Web ama WWW. Inkastoo ereyada web iyo internet badanaa isku micno loo isticmaalo, haddana maahan wax isku mid ah. Internetku waa qayb dhismeedka networka, halka webku yahay wadada loo maro gaarista xogta taalla internetka dhexdiisa. Tim Berners-Lee wuxuu soo saaray xudunta websiteska ugu badan ee ku shaqeeyaan, taasoo ogolaanaysay in internetku noqdo wax qaabaysan lana isticmaali karo. Sir Tim Berners-Lee iskuma kaliyen fikradiisii, wuxuuna uga tanaasulay dhaqaalihii uu ka heli lahaa in hal abuurkiisu guulaysto oo dadka kale ay wax ku biiriyaan. Internetka casriga ah waa wadar culus oo ka kooban bartilmaameedyo isku wada xiran daafaha dunida oo dhan. Su'aasha la isweydiin karo ayaa ah, sidee dhab ahaan isugu wada xiran yahay internetku? Xargo ayaa la dhex mariyay badaha si ay isugu xiraan wadamada oo dhan, mana aha qaabkan mid cusub oo ilaa 1854 ayaa loo isticmaali jiray markii la bilaabay dhisidii khadka Telegramka ee xargihiisa la dhex mariyay badda Atlantiga, Transatlantic Telegram. Kaliya waxay ahayd farsamo engineering ah oo aad u fudud, soona saartay natiijo tiknoolajiyadeed oo cajiib ah. Xargaha badda la dhex mariyo kaliya waxay ka kooban yihiin fiber optic lagu dahaaray waxyaabo difaac u noqda. Guud ahaan dunida, qiyaastii 420 xargaha internetka qaada ah ayaa la dhigay badaha, masaafo ahaanna gaaraysa 1.2 milyan oo kiiloomitir. Sidan ayay u shaqeeyaan. Markab ayaa xargaha waddan ka qaadaya, waddan kalena u safrinaya. Kadibna gunta badda ayaa xariga waxaa jeexdin yar uga samaynaya cagaf badeed. Kadibna xariga ayay gelin. Hirarka badda ayaana xabaalaya ugu dambeyn. Haddii meelaha qaar aan la aasin xargaha, waxay u nugul yihiin inay jiraan baroosinka maraakiibtu ama waxyaabo kale oo dabiici ah. 2008 waxaa dhacay dhibaato ka dhalatay dhaawac soo gaaray xargaha internetka ee badda gunteeda, taasoo keentay in 60% dalka India iyo 70% dalka Masar uu internetku muddo ka go'naado. Ma badna dhibaatooyinka soo gaara xargaha internetka, sidoo kale waa la dayactiraa waana laga warqabaa, balse waxaa laga dheehan karaa sida uu u nugul yahay in dhaawac soo gaaro xargaha internetka. Marka uu badaha ka gudbo internetku, waxaa jira nidaamyo sii baahiya oo ka kooban xargo dhammaan waddanka si ay u gaarsiiyaan. Guud ahaan, internetku weli wuu korayaa, kalabar dadka dhulka joogana waxay helaan awood ay ku isticmaalaan internetka. Waanse arki doonaa waxa xiga marka dadka oo idil awoodaan inay isticmaalaan internetka. Farsamo ahaan cidna iskama leh internetka, qof kastaana wuu leeyahay. Internetka laftiisu iskiis ayuu isugu xiran yahay, wuxuuna ka kooban yahay networks uga qayb noqday si iskood ah mid walba. Waa nidaam decentralized ah ama xarun guud oo laga maamulo aan lahayn, laakiin dawladuhu waxay awoodaan inay dadkooda ku kontaroolaan internetka isticmaalkiisa iyagoo u maraya
shuruuc ay ku soo rogayaan shirkadaha internetka bixiya. Tusaale ahaan, China waxay ka xirtay muwaadiniinteeda inay isticmaalaan YouTube. 2016 dowladda Mareykanka ayaa si rasmi ah u wareejisay database lagu kaydin jiray domain nameska ama magacyada lagu isticmaalo internetka ee websiteska, kaasoo ay hadda maamusho xarun shacab oo magaceeda loo soo gaabiyo ICANN, Internet Corporation of Assigned Names and Numbers. Database-kaas oo 20kii sano ee lasoo dhaafay ay dowladdu gacanta ku haysay ayaa hadda ka dhigan in gacanta shacabka uu ku jiro. ICANN waa xarun madax bannaan oo ay qayb ka yihiin bulshada qaybo ka mid ah, taasoo ka dhigan in wixii isbeddelo ah ee internetka ku saabsan lagala tashanayo bulshada. ICANN waa xarun NGO aan faa'iido doon ahayn, laakiin qaadata door muhiim ah oo ku saabsan dhanka ammaanka internetka, waxayna maamulaan nidaamka DNS-ka ama domain nameska lagu isticmaalo internetka. Taas waxay ka dhigan tahay marka aad qorto www.google.com, natiijada kuu soo baxaysa ma aha malaayiinta qoraal iyo scammerska ee internetka dhex yaalla, ee waa domain nameka rasmiga ah ee Google. Taasna waxaa suurtageliya xarunta ICANN. 3 bil oo kasta, koox lagu kalsoon yahay oo ka mid ah ICANN ayaa gala kulan lagu cusboonaysiinayo laguna xaqiijinayo ammaanka systemka DNS-ka 3 bil ee soo socota. Kulankaas waxa uu u dhacaa qaab ammaankiisu adag yahay, waxaana meesha uu ka dhacayo jooga ilaalo xooggan oo dad iyo qalabba leh. Sababtuna waxa weeye inay hayaan ama cusboonaysiinayaan master key ama furaha guud ee DNS-ka, kadibna waxaa lagu dhex qariyaa ilaa 5 kaar oo ay dadka kala qaadanayaan, taasoo meesha ka saaraysa in tiimkaasi waxaanay u dhammayn ay ka dhacaan xarunta ICANN. Xaruntaasi waa mid ka mid ah, laakiin waxaa jira xarumo iyo ururo kale oo ka qayb qaata sugidda ammaanka internetka, waxaana ka mid ah IETF iyo W3C oo uu aasaasay Sir Tim Berners-Lee oo aan barnaamijka bilowgiisii uga soo hadalnay. Xarumahaas iyo ururadaas waxay dejiyaan protocolska, waxayna xaqiijiyaan in internetku ammaan yahay, cid walbana uu furan yahay. La iskama diidi karo internetku nolosheenna inuu gebi ahaan bedelay, waxaase xusid mudan in uu sidoo kale ka qayb qaatay in bulshadu kala furfurmato, doodo madhalays ahna ka dhex abuurmaan, kuwaasoo ugu dambeyn ay ka dhalan karto caqabado liddi ku ah samaantay internetka, sida uu qabo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Facebook Jamaal. Xogtii badneyd ee dadku helayeen ayaa sidoo kale horseeday xog badan in dhinac qaldan loo fasiro. Sidaa darteed internetku dhibaatooyin waa leeyahay, waana halka Soomaalidu ka mahmaahdo nimco walba nusqaanteed leh. Taasna waa dabciga aadanaha ee aaladuhu qalad iyo sax ma leh. Waxaa sax ama qalad u isticmaala waa dadka. Internetku sidoo kale wuxuu fursad siiyey dad aad u badan, wariyayaal, fanaaniin, culimo, macallimiin, khubaro ku xeel dheer culuum kala duwan iyo wixii la mid ah. Dhammaan wuxuu siiyey fursad ay wax ku gudbiyaan annagoo handhaab ah, wuxuuna siiyey fursad aan xogtaan kugula wadaagno adiga daawanaya ama akhrisanaya. Waxaas oo dhan ma jiri lahayn haddii aan internet ku jirin. Xog aad u badan oo wadamo isaga gudbi lahayn ayaa internetku sahlay in durbadiiba daafaha caalamka ay gaarto, la falanqeeyo, lagana doodo. Waxaa laga abaabulaa kacdoono. Waxaad arki kartaa mudaharaadkii Faranse ee Yellow Vest oo cirka isku shareeray markii qaab online ah loo abaabulay, kacdoonkii Wikileakska ee badiba dareenka adduunka soo jiitay iyo wixii la mid ah. Taasna waxay caddayn u tahay awoodda aan la dafiri karin ee internetka, laakiin waa in aan dhanka togan u isticmaalnaa. Guud ahaan, waxaa xilligan la joogo aad u xooggan internetka ay bixiyaan shirkadaha isgaarsiintu, kaasoo soo maray jiilal kala duwan sida 1G, 2G, 3G, 4G iyo 5G oo xilligan meelo badan oo caalamka ka mid ah ka shaqeeya. Si aad macluumaad badan uga hesho jiilasha internetka ee shirkadaha isgaarsiintu bixiyaan, daawo muuqaalka aan horay uga diyaarinay jiilka 5 ama 5G. Linkiga xagga hoose ee muuqaalkan ayuu yaalaa. 5G oo ah nidaamka internetka ee hadda ugu dambeeyay, wuxuu aad u siyaadiyey xaddiga xawaaraha ee internetka, inkastoo ay jiraan saynisyahano iyo siyaasiyiin caan ah oo su'aal geliyey ammaanka jiilka 5 ee internetka iyo awoodda frequency-ga ee xog gudbinta uu isticmaalayo. Laakiin waxay caddeeyeen injineerada ku hawlan hirgelinta jiilka 5 ee internetku sida ay ammaan u yahay iyo awoodda waveskiisu
in ay waxyaabo badan oo maanta la isticmaalo oo caadi ah ka yar tahay, sida layrarka cadceedda ku shaqeeya. Guud ahaan jiilka shanaad ee internetku wuxuu dunida gaaray bartamaha sanadihii 2019 iyo 2020, waxaana la rajeynayaa in mustaqbalka uu caalamka oo dhan gaaro nidaamka jiilka shanaad ama 5G. Waxaa sidoo kale jira qorshayaal ay wadaan maalqabeennada tiknoolajiyadda qaarkood oo ah in mustaqbalka dhow uu adduunka ka hirgalo internet free ah. Maxay tahay sababta ay u rabaan? Yay yihiin cidda qorsheynaysa? Su'aalahaas iyo kuwo kaleba waxaan uga hadli doonaa mowduuceena xiga oo ku saabsan barnaamijka The Starlink ee uu wado shactiroolaha maalqabeenka ah Elon Musk. Magacaygu waa Salaaxudiin Soomaali, halkana waa Handab Academy. Haddii aadan horey noogu soo biirin, waa tahsan tahay.